السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow course cusub oo aan maanta bilaabi doono ku saabsan PHP. inkastoo aad ku cusubta beginner tahay PHP luqadan cusub, haddana waxaa muhiim ah inaad ogaatid ama requirement-gaaga wixii lagaaga baahan yahay adiga. in yar baa lagaaga baahan yahay inkastoo aanay muhiimayn, waan ku tusi doonaa anigu waxoo dhan. haddaba si uu course-kani mid fiican labadeedaba noogu noqdo, aniguna aan ku faa'iideeyo aduna si fiican ugu faa'iidaysatid. haddaba requirement waxbaa laga rabaa inaad garanaysid. haddaanad garanayn ana imika kuu sharaxaya, wax mushkilada ku jirta ma jirto. requirement waa wixii laga rabo web server. haddaba si PHP-ga si fiican aad ugu baratid oo aad u execute garaysid oo code-kii u qortid oo kugu soo baxo, waxaad u baahantahay web server. Apache waliba Apache ayaad u baahantahay. haddaba Apache sidii loo install garin lahaa waxaas oo dhan casharada soo socda inoogu jiraan. haddaba Apache muxuu noo qabanayaa? Apache wuxuu noo qabanayaa imka haddii aad HTML-kii soo baratay, intaad ayar code-kii qortid ayaad .html ku dhamaynaysid, kabacdina Chrome-kii baad kusoo baxaynaysid. laakiin ka PHP uu ka duwan sidaa, wuxuu u baahan yahay server gooniya oo aad ku kaydsated, kabacdina aad ku execute garaysid. keligii bila server waxba code ma shaqeynayo. talabaad aan u baahanay waxa weeyaan PHP server-kaas Apache nagu dhex jira, laakiin waa inuu at least version-kiisu ka dambeeyaa 5.6. imkana 7 iyo 8 meelahaas la maraya. waa caadi maaha taasi muhiim, laakiin haddaad versionadii hore soo download garaysanaysid waa inuu PHP-gaaga version 5.6 aanu ka yarayn. sidii waxaanu soo dhan loo soo wada download garan lahaana anaaba ku tusay insha Allah casharada dambe. database baad u baahantahay xogtaadan ku haysa oo backward endigiya. database-ka waxaan isticmaali doonaa MySQL. xogteenii imka website-ada qaar waa aragtay, xogtii baad gelinaysaa, xogtii uu ku kaydinay. waayo halkee lagu kaydinay? database-ka lagu kaydinay. waxaan kaloo u baahanay best text editor baan u baahanay aan qoraalkii ku qorano. waxaa ka mid ah Notepad++, Komodo, wax fara badan. waxaan kaloo u baahanay web server, web browser baan ujeeda. web browser-ku waa kii iminkadan aad ka daawanaysidba, aad YouTube-ka kasoo gashay waxoo dhan, waana Chrome, Firefox iyo wixii lamid ah. haddaba casharkeena maanta intaasuu nagu joogaya. course-kan cusub aan bilownay PHP intaasuu nagu joogaya casharkeena koobaad. waxaana nagu talagalay requirement-ga wixii laga rabo. marka waxaan laga rabo maaha muhiim inaad taqaanid ayaa iska muhiima, laakiin inaanad aqoon course-kan lama socon kartid maaha, waa la socon kartaa anaaba markuu sheegaya waxoo dhan insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.